galabnimo oo buuro ah. kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartaan dhegaysanaysaa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiinba waa isniin bisha Disembarna waa 4 sanadka 2017 qodobada aan barnaamijka dunida iyo maanta idinku hayana waxa kamida بيان هام من وزارة الداخلية تعلن وزارة الداخلية وفلاقة حوتيينتا oo xaqiijisay inay madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax ay sanaca ku dileen dagaalka Yemen waji noocee ah ayuu yeelan doonaa iyo Many obstacles remain in our journey to security and stability as a nation. Waa madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay caqabadaha ammaanka ee hor yaala dawladdiisa maxaa haddaba dhinaca ammaanka u qabsoomay Soomaaliya maxaa hortaagan in ciidan qaran la dhiso arrimahaasi ayaynu falaqayn doonaa ururka jaamacadda carabtuna diidmo ayay ka muujiyeen go'aanka Mareykanka ku aqoonsanaya magaalada Qudus inay noqoto caasimadda Israa'iil wasiirka ka tirsanaa maamul goboleedka Catalonia damiin ayaa loo diiday sheeko la yaab leh ayaan idin hayaa dayman 9 kaarood ah ayaa la xaraashaya xagga lagu xaraashaya halkii ayay ka timi ka hor dhici maayo barnaamijkii cayaaraha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena dunida iyo maanta Axmed Cabdi Nuur ayaa isku soo dubarhiday aniga oo Cabdi Xaafi Caawil Ismaaciil ayaa idin la socodsiinaya haddii Ilaahay idmo dunida iyo maanta marka hore waxaanu ku bilaabaynaa wararka BBC-da waxa inoo haysaa Faadumo Macalin Abuukar oo ku sugan studio-geena magaalada Nairobi. Faadumo mahadsanid Cabdi Xaafid. mucaaradka xuutiyiinta ee Yemen ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee dalkaasi Cali Cabdalla Saalax uu dhintay sawirro iyo muuqaal internetka lagu baahiyay ayaa muujinaya meydka nin u eg Cali Cabdalla Saalax oo madaxiisa ay ka muuqdaan dhaawacyo culus waxaa jira warar hore oo sheegaya in xuutiyiintu ay qarxiyeen guriga Cali Cabdalla mucaaradka oo magaalada Sanca kula dagaalamaya xulafadoodii hore ayaa soo saaray amar lagu dilayo Saalax madaxweynihii hore ayaa 6 bilood ka hor lagu qasbay inuu xilka ka dego balse waxa uu weli door ku lahaa arrimaha Yemen isagoo la saftay xuutiyiinta balse dhowaan ayuu heshiis la galay isbahaysiga oo Sacuudiga hogaaminayo ee isku dayaya inay ka adkaadaan mucaaradka Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa la filayaa inay madaxa guddiga Yurub Jean-Claude Juncker ay kula kulanto magaalada Brussels iyadoo ay sii socdaan dadaalo lagu doonayo in lagu soo afjaro wajiga koowaad ee wadaxaajoodyada ka bixitaanka Britain ay ka baxayso midowga Yurub waxaa muuqanaya in horumar laga sameeyay hindise sharciyeedka ku saabsan in Britain ay lacag ku bixiso ka bixitaankeeda midowga Yurub iyo xuquuqda muwaadiniinta balse wasiirada Ireland ayaa sheegaya inaan wax tallaabo ah loo qaadan arinta ku aadan xadka waqooyiga Ireland wasiirka Britain ka bixitaanka midowga Yurub David Davis ayaa sheegay inay muhiim tahay in midowga Yurub uu aqbalay in la gudagalo wadahadalada ganacsiga 10 qof ayaa lagu xiray dalka Malta iyadoo lala xiriirinayo dilka wariye iyo qof u dhaqdhaqaaqa ciribtirka musuqmaasuqa dhammaan 10 qof ayaa la sheegay inay Malta u dhasheen badankoodna hore ay dambiye u galeen Caruana Galizia oo ahayd haweeney u dhaqdhaqaaqda ciribtirka musuqmaasuqa ayaa ku dhimatay bam gaari lagu xiray bishii Oktoobar ee sanadkan qoyskeeda ayaa sheegay in haweeneydaasi loo bartilmaameedsaday shaqada ay haysay oo diiradda saaraysa siyaasiyiinta iyo ganacsiyada uu musuqmaasuqu hareeyay wafdi ka socday baarlamaanka Yurub oo 3 beri ka hor jooga Malta ayaa walaac daran ka muujiyay dimuqraadiyadda iyo waliba kala dambeynta dalkaasi Malta xaakim ku sugan Spain ayaa diiday in lacag dibad jooga lagu sii daayo wasiiro hore oo gobolka Catalonia ka soo jeeda iyo 2 qof oo bulshada rayidka ka tirsan kuwaas oo loo xiray doorka ay ku lahaayeen in gobolkaasi uu madax banaani helo mid ka mid ah dadkaasi waa ku xigeenkii hore madaxa gobolka ee shaqada laga cayriyay oo lagu magacaabo Oriol Junqueras 6 kale oo ah wasiiro hore oo reer Catalonia ah ayaa la filayaa in la sii daayo marka la bixiyo ku dhawaad $120,000 Mareykanka ah oo midkoodba uu bixinayo
wasiirada ayaa la xiray bil ka hor kadib markii gobolka loogu dhawaaqay inuu markaasi ka go-ayo dalka Spain intiisa kale. hogaamiyihii hore ee Catalonia Carles Puigdemont iyo 4 wasiiro hore ayaa dalka Belgium uga qayb galay dhageysiga musaafiriinta. qareenka Puigdemont oo Belgium ka soo jeeda ayaa sheegay in xaakimku uu kiiska xukmin doono 10 maalmood gudahood. isagoo warbaahinta la hadlayay ayuu Paul Picard ka warbixiyey doodii uu ka jeediyay qareenka hortiisa. waxaynu ku doodnay xaqiiqda ah in dambiyadan lagu soo eedeeyey aysan dembi ka ahayn dalka Belgiumka, sidaasi darteedna aan la soo musaafurin karin. waxaa kaloo aynu ku doodnay in ay jirto cabsi ah in lagu xadgudbo xuquuqda asaasiga, waana taasi sababta aan loo soo musaafurinaynin dadkani. ugu dambeynna xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka James Mattis ayaa dalka Pakistan u jooga wadahadallo ku aadan wax ka qabashada qulqulatooyinka iyo xasilooni kusoo dabaalida Afghanistan. waa booqashadii ugu horeysay uu markaasi General Mattis ku tago halkaasi tan iyo intii uu xilka qabtay. waxaa la filayaa inuu ku cadaadiyo xukuumadda Islamabad inay qaado tallaabooyin go'aan leh oo ka dhan ah kooxaha mayalka adag. Pakistan ayaa sidoo kale sheegaysa inay dhibane u tahay rabshadaha ay kooxaha mayalka adag wadaan, ayna si weyn uga howlan tahay howlgallada ka dhanka ah argagixisada. waxaa la filayaa inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahiid Khan Abbaasi iyo madaxa ciidamada General Qamar Javed Bajwa. warkii dunidana waa inaga intaan dib idinkugu celiyo Cabdixaafid iyo qaybaha kale ee idaacadda. aad ayay u mahadsan tahay Faadumo Macalin Abuukar inala socodsiinaysay wararka BBC-da iyadoo ku sugan stuudiogeena magaalada Nairobi. dhegeystayaal sidoo kale waxa aad toos noogala socotaan barta internetka aanu ku leenahay ee Facebooka. iminkana u diyaar garooba qaybaha idaacadda inooga hadhay. halkani waa London. sidii aad warkaba ku maqlayseen, fallaagada xuutiyiinta ee Yemen ayaa sheegtay in ay dileen madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdullah Saalex. faraha internetka ayaa la soo dhigay muuqaalo muujinaya meydka nin u eeg Cali Cabdullah Saalex oo dhaawacyo culusi madaxa ka soo gaadheen. waxaa hore u soo baxayay warar sheegaya inay xuutiyiintu ay gurigiisii duqeeyeen oo ay dumiyeen. fallaagada xuutiyiinta oo maalmihii u dambeeyey dagaalo ba'an kula jirtay taageerayaasha Cali Cabdullah Saalex ayaa soo saaray amar ahaa in la dilo. muuqbaahiyaha jabhadda xuutiyiinta ayaa sheegay oo ku dhawaaqay dilka علي عبد الله صالح. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. بيان هام من وزارة الداخلية. magaca ilaahay hadal muhiim oo ka soo yeeray wasaaradda arrimaha gudaha ee xuutiyiinta. wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay ku dhawaaqday in la soo afjaray dhibaatadii maleeshiyada khaa'imiinta ah markii lala wareegay dhammaan meelahay ku jireen caasimadda Sanca, duleedkeeda, gobollada, lana dilay hogaamiyihii khaa'imiinta iyo dhowr raacsanaa. ومقتل زعيم الخيانة وعدد من عناصره. haddaba waxaa iminka stuudioga ila fadhiya Mawliid Xaaji Cabdi wararkii ugu dambeeyey xaaladda Yemen. Mawliid, aad ayaad u mahadsan tahay. maxaynu ognahay maxaa ugu dambeeyey? Cabdixaafid waa mahadsan tahay. ilaa iyo hadda sheegashada waxay ka imaanaysaa xogaga xuutiyiinta oo iyagu baahiyey sida aynu maqlaynayba haatan inay dileen hogaamiyihii hore ee waddankaasi Yemen Cali Cabdullah Saalex. waxaa kale oo jirta in baraha bulshada gaar ahaan Twitterka iyo qaybaha kale bulshada ku wada xiriirto la soo dhigay sawirada iyo muuqaalo kale oo muujinaya in la dilay Cali Cabdullah Saalex. bar Twitterka oo ay leeyihiin koox xuutiyiina ayaa BBC-da ma xaqiijin karto video la soo dhigay waxa uu muujinaya Cali Cabdullah Saalex oo baabuur gadaal ka saaran meydkiisa oo ay ku sidaan kooxo ka tirsan ururka xuutiyiinta oo markaa ay busto ku sidaan meydkiisa. dhaawac weyn ayaa madaxa qaybta bidixda kaga yaala. si caadi ayuu u labisnaa sida sawirka ka muuqata ama muuqaalka. waxay ku qaylinayeen erayo ay ka mid tahay Allahu Akbar iyo alxamdulilaahi. waxaa kaloo ay sheegeen in ay dileen wax ay ku tilmaameen nin khaa'ina. Cali Cabdullah Saalex arrinta xuutiyiinta muddo hore 2014 waxay lahaayeen isbahaysi weyn ayaa u bilowday xilligaasi oo ay kaga soo horjeedeen dagaalka Sacuudiga oo ka dhanka ah. waxaa jirta laakiin sabtidii inuu ku dhawaaqay in uu furayo page cusub ama bog cusub uuna u furi doono
xiriirka sacuudiga iyo yeman waxaase uu sheegay in ay ka dalbanayaan xogaga sacuudiga inay joojiyaan duqaynta islamarkaasna la bilaabo wadahadal xayiradan ay qaadaan taasi waxay dhalisay inay aad uga caroodaan xuutiyiinta ninkan journalistaha oo ka tirsan ururo dhinaca saxaafadda dalkaasi yeman oo taageera xuutiyiinta ayaa waxa uu ka hadlay ama uu ka hadlayeyba shalay in ay imaan karto dilka cali cabdalla saalax. This was the biggest mistake Ali Abdullah Saleh has done since waa khaladkii ugu weynaa ee uu sameeyey cali cabdalla saalex tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka yemen sababta oo ah waxa uu ilaaway 3 sano oo isbahaysiga sacuudiga ay hogaaminayaan dagaalka yemen ay dalkii burburiyeen hadda dadka reer yemeni waxa ay leeyihiin hadalkiisu waxa uu ahaa wax laga qaadan karo tii ugu dambaysay sababta oo ah qorshihiisii ayuu khudbadiisii ku sheegay all his plan in that speech. marka cabdixaafid aan kuusii raaciye cali cabdalla saalax horta waddankaasi wuxuu xukumayey 34 sano ma aha markii ugu horeysay oo sidaan kale dhibaato ula kulmo 2011 ayuu ka badbaaday isku day dil waana looga wixii ka soo gaar dhaawac weyn baa ka soo gaaray colaadda waddanka yemen waxaa ku dhintay ilaa 8670 qof waxaa ku barakacay dad boqolaal kun ah in maanta cali cabdalla saalax uu dhinto ama ay dilaan xuutiyiintana waxaa laga yaabaa inay xaaladda dagaalka ka sidhito mid aad iyo aad halis u ah haddii aan dib ugu laabto taariikhdiisa cali cabdalla saalax wuxuu dhashay 21 March 1942 wuxuu ku dhashay deegaanka la yiraahdo Bayt al-Ahmar oo magaalada Sanca ka tirsan deegaankiisa iyo qabaa'ilkiisana waxay aad ugu badan yihiin deegaankaasi gaar ahaan qabiilkiisa la yiraahdo Sanxaan waxaa inta badan la sheegaa inay xiriir lahaayeen qabaa'ilka la yiraahdo Hashidka oo deegaankaas ayaguna ku xoog badan ilaa iyo intii uu yaraa wuxuu ahaa nin jabhada oo kacaanka iyo dowladaha iyo xisbiyada u janjeera xagga militariga iyo nidaamyada kacaanka buu aad ugu loolanaa dalka yemen intii isu midoobin 1990kii oo isu la midoobin xagga koonfurta isagu wuxuu ahaa madaxweynihii waqooyiga markii yemen ay noqotay ay midowdana labada yemen 1990kiina wuxuu noqday madaxweynaha waddanka yemen oo midaysan oo dhan arrinta khilaafka ayaa aad iyo aad loo hadal hayaa oo ah in khilaafkaasi uu keenay mar kastoo laga hadlayo kuma uu yahay iyo maxaa uga tegi doontaa waddanka yemen cali cabdalla saalax wuxuu yidhahdaa inaan yemen mideeyey ayaa ah waxa aan ka tegi doono oo laygu xasuusan doono mawlid ugu dambayntii markii intii ka hor dilkiisa waxa uu sheegay inuu weji cusub la furi doono xulifada sacuudiga waxaad moodaysa in layd ama uu nar usoo iftiimay sacuudiga iyo xulifadiisa oo dagaalka uu weji kale yeelanayo laakiin iminka waxaad moodaa inuu weji kii ka duwan sii yeelanayo waa kasii badanaya dabcan ustaad xasan baa inala fadhiyo stuudiyaha wax badan inoo falaqayn doona laakiin xaqiiqda waxa weeye dagaalka maanta oo ku dhintay cali cabdalla saalax haddii si rasmiya loo xaqiijiyo ma noqon doono kii ugu dambeeyey waxaana jirtay shalay iyo daraad in dagaalku aad u xoog badnaa gaar ahaan magaalada Sanca ayaa waxaa jirtay in masaajid ku yaal oo weyn oo xuutiyiintu ay leeyihiin oo dagaalka ka socday 125 qof oo kaliya ayaa ku dhintay 238 qofna ay ku dhinteen marka dagaalku wuxuu dagaal weyn laakiin sida fudud ee cali cabdalla saalax maanta gurigiis intii loo weeraray la qarxiyey inkastoo wararka qaarkood ay leeyihiin guriga ayuu ka baxsanayey oo marka kadib waa la toogtay haddana waxaa la filayey in aad loo difaaco maadaama qabiilkiisu iyo qabiil aad iyo aad u dagaalamo oo waddanka yemanna caan ka ah xagga dagaalka in si fudud inkastoo geerida imaan karto laakiin haddana lama filin in 2 maalmood gudahood lagu jabsho ciidankiisii oo dagaalka lagu jabiyo waa hagaag in aad iyo aad mahadsan tahay mawlid dhageystayaal wararka Soomaalidu way noo soo socdaan balse wali yemen xayle ayaa ilaa fadhiya professor xayle aad iyo mahadsan tahay waad maqlaysay sida wax u dhaceen waji sidee uu yeelanaya imika dagaalka yemen dagaalka yemen waxaad moodaa in madaxdii yemen asaga ka horeeyay markii la fiirsho cabdalla salaal iyo axmed bin xuseen alqaashmi ninka la yiraahdo iyo raggaas oo ibraahim alxamdi kulligood waxay ku dhinteen sidaan oo kale cali cabdalla saalax raggii asaga misan xukunka ugu horeeyay kulligood gacan ay ku dhinteen waa dad misan la khaarijiyay ahaayeen yemen ilaa bargii imaamkii yemen imaam maxamed albadri la riday 1962 yemen waxay ahayd meel dagaal civil war aad u dhibaato badan oo u eg midka hadda masalan taariikhda isku soo celidaha la yihahda masalan suuriya oo kale
ayaa ka dhacay sacuudiga iyo masaarida laba masalan macnaha kala taageerayay dadka imaamkii xukunkiisa dadkii rabay iyo dadkii jamhuuriyadda rabay militariga ahaa masalan cabdalla salaal oo masalan inqilaabka isagaa sameeyaa la yidhahdaa macnaha dagaal xoog badan oo aad loogu leedaa ka dhacay sida maanta masalan u eg masalan sida suuriya ayaa waxaa layahay soviet unionkana oo cirka ka duqeeyey masaaridana ilaa 70,000 oo ciidan ay geliday cali cabdalla saalax inqilaabyadaasu 1900 iyo marka la fiirsho 78 ayuu qabtay xukunka ninkaasuuna ka qabsaday oo la dilay asna marka wejiga uu yeelan doono hadda marka la fiirsho oo maanta arrimaha taagan la fiirsho sida mawlid yiri xaalka inuu ka sii daraa dhici karta cali cabdalla saalax waa nin qabaa'ila oo yemen qaybaha bulshadeeda ay ka kooban tahay qabaa'ilka ugu xoog badan nimankan hadda xuuthiyiinta waa raggii imaamka ka soo jeeday oo dad iska ahludiinahay ahaayeen waa shiica zaydiya oo qunyar socoda laakiin carada sacuudiga loo qabo aad moodaa yemen oo dhan inay ka midaysan tahay ama qabaa'ilkooda ha ahaadaan ama reer koonfur ha ahaadaan ama reer waqooyi ha ahaadaan cali cabdalla saalax nin sahal ku ama uusan ahayn 34 sano ayuu xukumayay dalka waa nin qabaa'il sidoo mawlid sheegay qabaa'ilka masalan ugu xooga badan ka soo jeeda xuuthiyiintu hadda waxaad moodaa dagaal inuu dhici doono xuuthiyiinta iyo qabaa'ilka masalan cali cabdalla saalax oo ayagana argooshadsodoona inay dagaalami doonaan aad moodo in masalan sacuudiga iyo xulfadiisa ay xoogaa macnaha ay siin doonto fursad ay xoogaa yar ku nastaan si masalan ay u arkaan labadan ishayda ay la dagaalamayeen shalay cidda soo baxda waa hagaag xasan cabdi xayle aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay iishu waan kuu soo noqonayaa wararkii soomaalida ayaynu goor dhow u gelaynaa asxaabta facebook ayaa ra'yigooda ka soo dhiibatay iyaguna beegsi oborama ka soo qoray waxa uu yidhi madaxweynihii hore yeman cali cabdalla saalax waa dhibaato iyo caqabad hore oo caasha soo saartay dalka ay dhibaatada dagaalku la godgashay waxaa si habboon in aanay beesha caalamku indhaha ka laaban in ay runta diirka uga qaado dowladaha waaweyn ee ku dhex herdamaya ayuu yidhi yeman haddii kale maalin aan maanta ahayn ayay arintu adkaan doontaa iid qaasiin warsame oo jooga burcana waxa uu leeyahay dilka cali cabdalla saalax waa dhibaato iyaduna sii hurin doonta ayuu yidhi dagaalka ragaadiyey dalkaasi yeman halka uu saalex uu leeyahay allaha u naxariisto oo marxuumkaasi dhintay run ahaantiina waxaa halkan ka muuqata marxalad adag in ay iminka yemeni gelayso asxaabta facebooka ka soo dhiibatay ayay ra'yigoodu ahaayeen halka aad dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da halkan waa london waa hagaag warar kale oo ku saabsan caalamka ayaa inoo soo socda iyo dabcan barnaamijkii cayaaraha iyo weliba sheeko la yaab leh balse muqdisho hogaamiyaasha dowladda federaalk ee soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo wakiilada beesha caalamka ayaa waxay maanta muqdisho waxa uga bilowday shir soconaya 2 maalmood kaasi oo lagaga hadlayo dhaqangelinta heshiisyadii dhanka ammaanka ee lagu gaadhay magaalada london bishii may ee sanadkan wariyaha b b c da ibraahim maxamed aadan ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray أهلا عبد الحفيد هاي وهجاج إبراهيم توس أيو خدك وجراه إبراهيم واد ما صنتهاي محاودا به cabdi xaafid wejigii koowaad shirka ayaa lasoo gabagabeeyey gelinkii dambe ee maanta waxaa is arkayay madaxda soomaalida iyo wakiilada beesha caalamka sidaad sheegtay waxaa diiradda la saarayay waxaa ka hirgelay naqshadii ammaanka qaranka lagu sameeyey shirweynihii london bishii may sanadkan ka dhacay magaalada london warmurtiyad ayaa kasoo baxay gelinkii dambe shirka 3 qodob oo muhiim ah ayaana kasoo baxday oo ah in la fuliyo dhammaan wixii ku jiray naqshadii heshiiska ammaanka qaranka ee london sidoo kale in sida ugu dhaqsiyaha badan horumar looga sameeyo qorshayaasha loogu talagalay la wareegitaanka xilliga kumeel gaarka ciidanka qaranka Soomaaliya ay kala wareegayaan amniga dalka ciidamada midowga Afrika iyadoo bisha December waa bisha aynu ku jirno 31keeda batalyankii ugu horeeyay ee ciidamada midowga Afrika ay dalka ka bixi doonaan tan iyo markii ay yimaadeen sanadkii 2007 iyo
qodobka saddexaad oo ah in bulshada caalamku ay sii wado taageeradooda dhismaha awoodda ciidanka qaranka ee Soomaaliya. Goorsii horeysay furitaanka shirka waxaa ka hadlay madax kala duwan sida madaxweynaha Soomaaliya, madaxda dowlad goboleedyada, gudoomiyaha gobolka Banaadir, wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay, wakiilka midowga Afrika ahna madaxa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa shirka furay mar uu ka hadlayay waxyaabaha ilaa hadda uga hirgalay qorshihii dhinaca ammaanka ama heshiiskii dhinaca ammaanka ee London lagu saxiixay bishii May ee sanadkan. Madaxweynuhu waxa uu yiri: In this short period, we have completed the operational readiness assessment for the police and the National Army. Muddadan kooban waxaan ku dhamaystirnay qiimaynta diyaargarowga howlgalka ee booliska iyo militarigeena. Waxaan bilownay inaan qaab casri ah u diiwaangelinno askarteenna si mushaarkooda loogu shubo koontooyin bangiyada ah. Waxaan wax badan ka barannay baahida iyo awoodaha ay leeyihiin ciidankeenna. Macluumaadkan waxaan u adeegsan doonaa inaan ku salayno isbeddelka aan samaynayno. Guulahan aan gaarnay waxay fududayn doonaan meelmarinta qaab dhismeedka ammaanka qaran iyadoo qaab wax ku ool ah loo wajahayo ammaanka. madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo waxaa kale uu ka hadlay loolanada dowladdiisa iyo dalka Soomaaliyaba weli haysta ee ku saabsan dhamaystirka heshiiskii ammaanka qaranka ee London lagu saxiixay bishii May ee sanadkan. Many obstacles remain in our journey to security and stability as a nation. Caqabado badan ayaa ku horgudban dhabaha aan u qaadayno ammaanka iyo xasiloonida qaran. waxaa ka mid ah isku xirka deegaanada dhawaan la xoreeyay iyo in la gaarsiiyo gargaarka ay u baahan yihiin iyo weliba horumarintooda dhanka dhaqaalaha. Ka dawlad ahaan waxaan xoogga saarnay dakhliga gudaha waxaana faynaa in mustaqbalka aan la wareegi doono kharashaadka ku baxa dawladdeena. hase yeeshee xaaladda amni ee hadda jirta ayaa dhaafsiisan awooddeenna dhaqaale waxaana degdeg u codsanaynaa in beesha caalamka ay kordhiso taageeridda laamaheenna ammaanka waa haddii la rabo in la ilaaliyo guulaha ilaa iyo hadda aan gaarnay. madaxda kale ee shirka ka hadashay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee Taabid Cabdi. mid kasta ay wuxuu diiradda saarayay loolanada dhinaca ammaanka ee deegaankiisa ka jira. mid kasta ay wuxuu qirayay khatarta al-shabaab ee deegaanada uu ku sugan yahay. Puntland waliba waxa uu sii dheer kooxda sheegtay inay taageersan tahay kooxda la baxday khilaafada islaamka ee IS. Axmed Madoobe markii uu hadlayay madaxweynaha Jubbaland waxa uu sheegay in caasimadii Jubbaland ay gacanta ku hayeen al-shabaab sidaas oo kalena madaxda ugu sareysay al-shabaab ay ku sugan yihiin Jubbaland. sidaas oo kale Shariif Xasan markii uu hadlayay wuxuu sheegay in gobolka Shabeellada Hoose uu ka mid yahay meelaha ay ku xididaysteen al-shabaab oo ay tahay in wax lagala qabto. sidaas oo kale Hirshabelle waxay madaxweynahoodu wuxuu ka hadlay wadooyinka xiran oo al-shabaab ay go'doomiyeen. marka waxaad moodaa dhinacyada oo dhan inay diiradda saarayeen khatarta ka imaanaysa al-shabaab. madaxda beesha caalamka ee halkaa ka hadashay waxaa ka mid ahaa wakiilka gaarka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating oo diiradda saaray sida bulshada caalamka iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobeyba ay u garab taagan yihiin heshiiskii dhinaca amniga ee madaxda Soomaalida iyo bulshada caalamku ay ku gashay London bishii May. wuxuu sheegay in taageeradaasi ay soconayso laakiin wuxuu sheegay in mar kastaba ay ku xiran tahay hadba horumarka laga sameeyo hirgelinta heshiiskaasi. I think the ability of international partners to build the capacity of Somali security forces waxay ila tahay in awoodda beesha caalamka ay ku dhisayso laamaha ammaanka ee Soomaaliya ay ku xirnaan doonto horumarka laga sameeyo qaabka ammaanka iyo meelmarinta qorshahaasi kala guurka ah. Soomaalidu waxay mudan tahay taageero macquul ah oo beesha caalamka uga timaada si ay taasi u sameeyaan. Michael Keating ayuu ahaa shirka wajigiisii koowaad waa la soo gabagabeeyey. berrito waxaa is arkaya wakiilada bulshada caalamka. waxaa joogay madax danjirayaasha dowladaha waaweyn gaar ahaan danjiraha dalka Britain oo qayb weyn ku lahaa heshiiska ammaanka iyo dowladda Britain oo martigelisay shirkii London. dhinaca kale Cabdi Xaafid magaalada Saake waxaa lagu soo toosay iyadoo magaalada oo dhan ay xiran tahay iyadoo wax ogeysiisa
ama aan dadka loo sii sheegin in magaalada la xirayo. dadweynuhu waxay ku soo toosteen wadooyinka oo ciidamada ammaanku ay dhooban yihiin. ardaydii dugsiyada aadi lahayd iyo jaamacadaha guryaha ayay dib ugu laabteen. ganacsatadii, dadweynihii caadiga ahaa, gaadiidkoodii dhammaan wadooyinka ayaa laga celiyey. sidaasoo kale qofkii ku xisaabtamay inuu saaka dhakhtar tago ama isbitaal tago, saaka wuxuu ku yimid isagoon gaadiid haysan. dad badani way lugeeyeen. xitaa wariyaasha aan anigu ka mid ahay markii aan tegaynay garoonka diyaaradaha uu shirku ka dhacayay, waqti dheer ayay nagu qaadatay lugta. weliba magaalada maanta aad bay u kulleed oo cadceeddu waxay ahayd mid aad u kul. waa hagaag ibraahim maxamed aadan, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. toos ayuu khadka ugu jiray magaalada muqdisho. haddaba stuudioga waxaa igula sugan xasan cabdi xayle oo ka faalooda arrimaha siyaasadda. xasan, aad ayaad u mahadsan tahay. bal marka hore shirkan muhiimadiisa iyo waxa uu kaga duwan yahay shirarkii hore bal inoo faahfaahay. shirkan maadaama la yidhi waa shir macnaha lagu qiimeynayo dhismihii ama naqshadii sida masalan hadalka ka mid ahayd ammaanka Soomaaliya, waxaa la rabay maadaama bishii May sanadkan halkan oo London ka dhacay qaybtiisa hore, qaybtiisan dambe oo aad muddo 6 bilood kadib in ay ka dhacdo Soomaaliya. marka shirkan runtii marka la fiiriyo, maadaama ammaanka uu ku saabsan yahay ammaanka halkaas Soomaaliya, gaar ahaan caasimadda markii la yiraahdo waa meesha ugu dhibaatada badan, waxaad moodaa in ay laba waji leeyahay. dowladda oo laga sugayo inay ammaanka wax ka qabato, iyo ma aha ammaanka Soomaaliya wax khatarta ku haya maartay bulshada dhexdeeda ma aha. waa kooxo dagaalyahan ah oo ilaa 10 sano muddo ku dhow dagaal kula jira dowladda Soomaaliya oo doonaya inay ridaan dowladda Soomaaliya. waa al-shabaab. labadaas category ama labadaas qaybood sida ay kala yihiin, dowladda xilka masalan Soomaalidana ay ka sugayda beesha caalamkana ay ka rabto inay fulido, waa in ammaanka inuu ay horumarido, ay wax ka qabato tallaabo. laakiin marka xasan, waa hagaag ammaanka in wax laga qabto hore ayaa looga hadlay. maxay kaga duwan yihiin? yani shirkan muxuu kuwii hore kaga duwanaanayaa? maqaabka ammaanka wax looga qabanayo, bal taab noo taataabo. waxaan isleeyahay maadaama shirkii London naftirkiisa uu ahaa macnaha qorshahaas iyo balaankaas dowladdan cusub ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxda ka ahaa, barnaamijkan uu ka yahay Xasan Cali Khayre, tan leedinka rabo maadaama dowladihii hore aan soo siin qorshaha noocaan ah, ayagu inay noqdaan kuwa masalan waayo madaxweynaha turkiga wuxuu qabsaday 2 sano muddo yani ku siman in ay shabaab dalka ku xireen doonaan oo ay ku xigi doonto in ciidamada masalan amisom ay Soomaaliya isaga soo bixi doonaan. marka hawsha noocaas ah oo dabeecadaas leh waayo wax masalan meeshan laga rabo. waxaan ognahay Cabdulla Xaafid in Soomaaliya waxa ragaadiyay oo masalan maanta anigu inkastoo madaxweynuhu oo hadlayo oo aan hadalka oo leeyihiin aan Soomaalida niyadjab aan u sheegin, haddana waxaa muddo khilaafaadkii dowladda ka dhaxeeyay inuu masalan hoos u dhigay in masalan 6 bilood oo la soo dhaafay wax ku oola laga qabto. waxaan ogsoonahay qarxii ugu weynaa ee bishii masalan Oktoobar dhacay, labadeeda qaybood 14keedii iyo 19kii labadii hotel oo la qarxiyay. shalay ah ayay dowladdu soo saartay ama guddigii ay u saartay khasaaraha intuu la ekaa oo ay ka hadleen waxa uu ahaa. waayahay xasan, ammaanka waxaa ka mid a ciidan qaran Soomaaliyeed oo la dhiso, marar badanna waa laga hadlay. maxaa hortaagan? waxaa hortaagan anigu sidaan u arkayo waa Soomaalida naftirkeeda. waayo haddii khilaafaadka noocaasa aan soo sheegay oo mar kasta qorshihii dalka ou lahay ou hakin karo, waa one factor ama waa hal sabab oo keeni kara in ciidamada Soomaaliya aan hore loo marin. tan labaad, hadda shalay ahayd markii maamulka Puntland oo keenay 2500, waxayna ahayd maamulada oo dhan inay ciidamo tiradaas la eg saamigaas la eg ay wada keenaan. ma aysan dhicin. maalintii la soo aadayay London waxaan ogsoonaa usbuucii ka horreeyay in hadalka soo caso 18 oo ciidamada la sameeyay in la yiri ciidanka Soomaaliya in dib loo dhiso. anigu waxaan u haystaa qaybta ugu horreeyda Soomaalida hortaagan oo aan marna samaynin siyaasad cad oo dib u heshiisiin iyo isku kalsoonaan Soomaaliyeed oo ciidan qaran oo ka xuraysan. macnaha waxaa jira macnaha kala shaki bulshada dhexdooda iyo maamul goboleedyada naftirkooda ay kala qabaan. si ciidamada loo dhiso, si ciidan qaran loo dhiso, caqabadaha hortaagan ay kamid tahay. waa inaan dhameeyo. aad ayadu mahadsan tahay xasan cabdi xayle. waa hagaag goordhow qodobada warka ugu door koranayaad maqli doontaan, balse sheekooyinkaasi ka duwan. Diamond 709 kaarood ah ayaa la helay. xaggee laga helay? xaggee lagu xaraashayaa? waxaa noo haya xasan cali gele
dhagaxan qaaliga ah ayaa waxaa bariga degmada Kono ka soo helay baadari masiixi ah oo lagu magacaabay Emmanuel Momo wuxuuna xilligaasi go'aansaday inuu dawladda ku wareejiyo halkii uu duurka ka iibsan lahaa. baadarigan ayaa barnaamijka BBC-da ka baxa ee Newsday waxa uu u sheegay in bulshada wax faa'iido ah aysan ka heli lahayn haddii dheemankaasi uu ka iibsan lahaa dadka ka dulaala dheemanka. waxa uuna sheegay in bulshadiisu aysan haysan waxyaabo badan sida waddooyin fiican, iskuullo iyo biyo la cabo. xaraashka dheemankani ayaa haatan waxaa gacanta ku haya shirkadda Rapaport waxaana guddoomiyaha shirkaddani Martin Rapaport uu sheegay in tiro kale oo dheeman ah ay ku dhex jiraan dhagaxani gudihiisa. sida uu sheegaya Martin, lacagta ka soo xarota dheemankani waxaa lagu wareejin doonaa dawladda Sierra Leone waxaana looga faa'iideyn doonaa bulshada ku nool deegaankii laga soo helay. waxayna mustaqbalka arrintaasi dhiirigelin doontaa buu yidhi in shacabka intiisa kale ay dawladda la shaqeeyaan oo haddii ay dhacdo inay helaan dheeman kale ay sidaan oo kale ku soo wareejin doonaan dawladda si ay uga faa'iidaystaan. horraantii bishii November ee sanadkan ayaa macdanqodayaal reer Sierra Leone ah waxay isla degmadaasi Kono ka heleen dheeman cabirkiisu yahay 476 karat kaas oo ah kii 29aad ee ugu weynaa ee dunida laga helo. dawladda Sierra Leone ayaa rajaynaysaa in dheemankan uu noqdo mid ka duwan kuwii waayadii dagaalku socday loo bixiyey dheemankii dhiigga lahaa ka oo dakhliga ka soo xarooda lagu maalgelin jiray dagaalkii sokeeye ee dalkaasi soconayay muddo 11 sano ah. 10,000 oo qof oo reer Sierra Leone ah ayay jabhadihii dagaalku ku jiray adoonsan jireen oo ay dheemanka ku qodan jireen qofkii diidana waxa ay goyn jireen lugaha iyo gacmaha iyo xubnaha kale ee jirkiisa sida dhagaha iyo xubnaha taranka. dheemankii ugu weynaa ee laga helo dalkaasi Sierra Leone ayaa waxaa beriga loo bixiyey xidigii Sierra Leone waxaana laga soo saaray isla degmada Kono sanadkii 1972. xasan cali geele aad ayuu mahadsan yahay. dhegaystayaal iminkana saacadda geeska afrikada bari 5:15 ayay tilmaamaysaa. muriid xaaji cabdi aan ka codsado inuu inoo guudmaro qodobada warka ugu doorka roon. mucaaradka xuutiyiinta ee Yemen ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax la dilay. sawirro iyo muuqaal internetka lagu baahiyey ayaa muujinaya meydka nin u eg Cali Cabdalla Saalax oo madaxiisa ay ka muuqato dhaawacyo culus. ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa la filayaa in madaxa guddiga Yurub ay kala kulanto magaalada Brussels iyadoo ay sii socdaan dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjiro wejiga koowaad ee wada xaajoodka ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ay ka baxayso. 10 qof ayaa lagu xiray dalka Malta iyagoo lala xiriirinayo dilkii wariye iyo qof u dhaqaaqa ciribtirka musuqmaasuqa. dhammaan 10 qof ayaa la sheegayaa inay Malta u dhasheen badankoodana horay ay dambiya u galeen. xaakim ku sugan Spain ayaa diiday in lacag dibadda joog ah lagu sii daayo wasiiro hore oo gobolka Catalonia ka soo jeeda iyo 2 qof oo bulshada rayidka ka tirsan kuwaasi oo loo xiray doorka ay ku lahaayeen in gobolkaasi uu dhawaaqo madax banaani. ugu dambayntii xogayaha muuraha dibadda waddanka Mareykanka James Mattis ayaa dalka Pakistan wada hadallo ku aadan wax ka qabashada qulqulatooyinka iyo xasiloonida ku soo dabaalidda waddankaasi Afghanistan waxa uu kula leeyahay mas'uuliyiinta waddankaasi. waa boqoshadii ugu horeysay ee General Mattis oo ku tagay halkaasi tan iyo intii uu xilka qabtay. waxaa la filayaa in uu ku cadaadiyo xukuumadda Islamabad inay qaado tallaabooyin go'aan leh oo ka dhana kooxaha mayalka adag. mawlid xaaji cabdiyaad ayuu u mahadsan yahay. barnaamijkii cayaaraha ayaa inoo soo socda iyo weliba wasiiro ka tirsanaa maamul goboleedka Catalonia oo ay Spain u diiday damiin balse bii'adda. wasiirada deegaanada amaba bii'adda oo ka kala socda ilaa iyo 100 waddan oo caalamka ah ayaa maanta ku shiraya magaalada Nairobi kuwaasi oo isku dayaya sidii looga hortagi lahaa wasakhaynta bii'adda. sidoo kale wasiirada ka qaybgalaya shirkani ayaa ka wada xaajoon doona tallaabooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay sida in la mamnuuco in lagu qubo badaha qashin. haddaba wararka la xidhiidha shirkan waxaa inoo haya xasan cali geele. shirkan ayaa la filayaa in ugu dambayntii la isla qaato qorshe mustaqbalka wax looga qabanaya dhibaatada bacda ay ku hayso badda ha noqoto mid lagu daadiyo ama xitaa mid berriga lagu daadiyo kadibna ku qubata badda. dowladaha caalamka ayaa laga doonayaa inay gaaraan heshiis caalami ah oo arrintaasi wax looga qabanayo. qaramada midoobay ayaa sheegaysa in 9 milyan oo qof ay sanadkii 2015 u dhinteen sababo la xiriira wasakhowga hawada, deegaanka iyo biyaha iyadoo kala bar dadkaasi ay ku dhinteen waddamada Shiinaha iyo Indiya.
waxaana kal hore qaramada midoobay ay go'aan ku gaartay in la dhimo dhibaatada ka dhalata bacda marka la gaaro sanadka 2025 balse qaraar ay hadda dowladda Norway hormuud ka tahay ayaa lagu doonayaa in ugu dambeyntii bacda oo dhan dunida laga mamnuuco madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan bay'ada ee UNEP Erik Solheim ayaa BBC-da u sheegay waxa hay'adiisa ay doonayso in laga qabto dhibaatadan. waxaan u baahannahay in tallaabo adag ay qaadaan dowladaha oo waajibkooda ay gutaan waxaan arrintan uga gol leeyahay arrintu way ka weyn tahay in la yidhaahdo warshadaha bacaha sameeya waxay samayn karaan wax ka wanaagsan bacda adduunka horumar ayaa la gaaray oo xitaa dayax ayaa la sahmin karaa waxaan daweyn karnaa cudurka kansarka sidoo kale waxaan samayn karnaa baabuur cidna aysan wadin oo isaga iswada marka waxaa iska cad in wax ka fiican bacda aynu samayn karno marka la eego sidii wax looga qaban lahaa arrintan waxaa la doonayaa in lagu daydo heshiiskii Paris ee cimilada balse Mareykanka oo horey looga bartay inuu ku gacan sayro heshiisyada caalamiga ah ayaa hadda iskiis u ogolaaday in kulanka Nairobi uu qayb ka noqdo inkastoo maraakiibta horey looga mamnuucay inay bacaha ku daadiyaan badda haddana ma jirin sharci caalami ah oo xadidaya bacda beriga ka imaanaysa ee ku qubanaysa badda waxaana dadka arrimaha bay'ada u ololeeya ay sheegayaan in loo baahan yahay in dadka laga wacyigeliyo halista arrintaasi leedahay Erik Lengeberg oo ka tirsan hay'ad u dhaqdhaqaaqda arrimaha duurjoogta ayaa BBC-da u sheegay in arrinta bacda ay tahay mid dhibaatadeeda leh 8 milyan oo tan oo bac ah ayaa sanad kasta lagu qubaa badda tiradaasi ayaa ah mid in badan ka badan guud ahaan tirada dadka ku nool waddanka Jarmalka marka waa tiro aad u badan waana sababta aan u arki doono haddii aan wax ka qaban in badda lagu arko bacdii oo ka badan tirada kalluunka badda ku nool Kenya oo shirkan martigelinaysa ayaa horey u mamnuucday isticmaalka bacda waxaana amarkaasi u muuqdaa guud ahaan mid ka dhaqangalay dalka oo dhan hase yeeshee dowladaha caalamka arrintaasi iskuma waafaqsana Shiinaha oo ah dalka ugu weyn ee bacda soo saara isla markaana dhibaatada ugu weyn kala kulmayo ayaa la sheegayaa inuu taxadar ka muujinayo caqabadaha uu kala kulmi karo sharciyada caalamiga ah waa haddiiba la isku afgarto in la mamnuuco bacda balse wadamada kale ee sida India iyo Indonesia oo iyagana soo saara bacaha ugu badan caalamka ayaa la sheegayaa inay taageersan yihiin qorshaha bacda lagu mamnuucayo xasan cali geele aad ayuu mahadsan yahay haddaba muhiimadda shirka Nairobi iyo dhibaatooyinka Soomaalida ka soo gaara wasakhaynta deegaanka ayaa Cabdirasaaq Xaaji Catoosh waxa uu ka waraystay aqoon-yahan Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo degan dalka Sweden kuna takhasusay arrimaha deegaanka shirkan lagu qabanayo magaalada Nairobi waxaa looga hadlayaa arrimaha deegaanka ayaa looga hadlayaa waxaana runtii lagu qabanayaa magaca United Nationska oo UN Environment Assembly-na waa la yiraahdaa balse waxaa ka horreeyay kulamo ka horreeyay oo kuwaas oo diiradda lagu saarayay arrimo fara badan oo deegaanka dhibaato ah oo ay ka mid yihiin wasaqaynta ay ka mid yihiin Dr. Cilmi marka deegaan wasaqayn la yiraahdo maxaa soo hoosgalaya ma biyaha ma badda iyo in baddi la wasaqeeyo ma cimilada iyo hawada bal sharaxaad naga sii deegaan wasaqayn marka la leeyahay horta deegaanka guud ahaan waxaa lagu macneeyaa dhulka iyo biyaha iyo hawada iyo inta u dhaxaysa iyo cidda ku nool oo idil oo dhammaan noolayaasha kala duwan ah ayaa deegaanka isku ah wasaqayntana markaas waxay noqonaysaa waxyaabaha tusaale ahaan ama biyaha ama dhulka carrada iyo geedaha iyo dhirta iyo hawada wasaqayn kara kiimikada u badan ee markaasi noolayaasha meeshaas ku nool dhibaato caafimaad u keeni kara ayaa la yidhaahdaa wasaqaynta waana mid maanta dunida ku badatay gaar ahaan wadamada soo koraya dabcan Soomaaliya wadamada soo koraya ka mid tahay aqoonna waad u leedahay arrimahan cimilada iyo deegaanka dhibaatada ugu weyn ee dalka Soomaaliya haysto marka deegaan laga hadlo maxay tahay Catooshow deegaanka dhaawaca iyo dhibaatooyinka ku dhaca waxaa loo kala qaadaa mid dabiici ah iyo mid dadka bini'aadanka ah ay noloshooda iyo howlahooda ay dhaliyaan midka dabiiciga ah dalka Soomaaliya waa mid marba markasi dambaysa sii kordhayay waxaana ugu horeeya dhibaatooyinka deegaanka soo gaaro abaarta iyo fatahaadda oo ayagu dhaliya dhibaatooyin deegaan oo mid aad u weyn ah faqrigu waxa uu dhaliyaa tusaale ahaan asaga laf ahaantiisa in deegaanka la baabi'iyo oo dadku ay deegaanka ay macnaha baabi'iyaan marka laga soo gudbo waxyaabaha dabiiciga ah ee cimiladu ay la xiriirto ama ay nabaad guurka iyo dhulka xaalufkiisa markii laga soo tago oo dhinaca dabeecaddu ay wadato markii laga soo tago waxaa ka daran midda ay dad bini'aadanka ah ay dhaliyaan gaar ahaan dalka Soomaaliya waxaa ka dhaco in dhirtii si aad ah loo jaro oo lagu hayo kaymaha dhulka Soomaaliyeed oo aan badnayn in si xawli ah loo jaray dhowr iyo 20 sano ugu dambeeyay waxa kaleeto oo dalka Soomaaliya ku dhacay in
wasaqayn aad u badan loo geystay biyihii dhulka hoose ku jiray maadaama aysan jirin nidaam lagu xanaaneeyo wasaqada bini aadanka lagu xanaaneeyo sidoo kaleeto qashinka tirada badan ee kasoo baxaya magaalooyinka iyo meelaha la degan yahay oo aanan loo samaynin nidaam lagu xanaaneeyo oo lagu ururiyo meel gaar u ah taasi waxay keentay in ay wasaqayso deegaanadii dadka ay ku noolaayeen oo idil dhammaan waxyaabahaas oo idil iyo gaar ahaan waxyaabaha hadda aad sheegtay oo ka mid yihiin bacda iyo waxyaabaha balastikada ah oo laga sameeyo oo idil oo aad ugu batay deegaanadii gaar ahaan magaalooyinka iyo meelaha mataqaana dadku ay macnaha dhaqaalahooda uu ka kobcayo oo aan wax control ah ka jirin kuwaas oo idil iyo wasaqaynta guud ee dhulka iyo biyahaba waxa ay saameynta ugu daran ay ku haysaa dhulka xeebaha ah oo ayagu ay galaan qashinka tirada badan ee magaalooyin ka soo baxaya Soomaaliya dhibaatada ugu weyn ee dhinaca deegaanka haysaa waxay tahay in ciddii wax ka qaba lahayd oo awood dhaqaale mid hay-adeed mid sharciyeed iyo mid aqooneed u lahayd ayaa meesha ka maqan waxaana markaasi haddana taasi garab socotaa in ay aad u bateen wasaqayntii dhinaca deegaanka hadday ahaan lahayd qashinka iyo haddii ay ahaan lahayd waxyaabaha kale ee tirada badan ee dadka bini aadanka ahi ay sababaan marka mashaakilka deegaaneed ama deegaanka Soomaaliya ee sii halaabaya ma noqon doono mid xitaa haddii la xalliyo mashaakilaadka kale ee bulsho ee siyaasadeed iyo dhaqaale ee dalka Soomaaliyeed haysto حتى هدي كواس الحليو dhibaatada iyo dhaawaca gaaray deegaanku waxa uu noqon doonaa mid muddo dheer sii jiitama ayadoo taasi ay ugu sii daran tahay weliba la bilaabin hawshii deegaankaasi wasaqaysan lagu nadiifi lahaa laguna hortagi lahaa in dhibaatada caafimaad ee ka dhalan kartaa laga hortago hadalkaasina waxa uu dambeeyay aqoon-yahan cabdulaahi cilmi maxamed cabdisaaq xaaji catoosh ayuu u waramayey madaxa jaamacadda carabta ayaa sheegay in go'aan maraykanka uu ugu aqoonsado magaalada qudus ay tahay caasimadda israa'iil aysan ku jirin danta geedi socodka nabadda bariga dhexe waxaa jira warar sheegaya in madaxweyne Trump uu Arbacada jeedin doono khudbad uu kaga hadlayo arrintaasi faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya Axmed Badar madaxweyne Donald Trump ayay tahay in maanta uu go'aan ka gaaro in uu saxiixayo sharci dib loogu dhigayo in safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv loo wareejiyo magaalada Qudus iyo kale arintani ayaa dib loo dhigi karaa muddo 6 bilooda xogayaha guud ee jaamacadda carabta Abulqayd ayaa waxa uu sheegay in siyaasadda Mareykanka wax laga bedelo ay halis gelin karto xasiloonida gobolka dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun ayaa ka digay in cawaaqib xun ay yeelan doonto haddii Mareykanka ay magaalada Qudus u aqoonsadaan caasimadda Israa'iil Ayman Safadi ayaa waxa uu sheegay in haddii Mareykanka ay qaadan tilaabadaasi ay ka dhalan karto caro ka timaada carabta iyo muslimiinta la taliyaha madaxweyne Trump isla markaana ah wiilka wasadoga yahay Jared Kushner ayaa waxa uu sheegay in wali madaxweynaha uu ka baaraandagayo in Qudus loo aqoonsanayo caasimadda Israa'iil iyo in kale We know what's in the plan. The Palestinians know what discussions we've had with them. The Israelis know what discussions we've had with them. waan ognahay waxyaabaha ku jira qorshahan Falastiiniyiintu way og yihiin waxa aan kala hadalnay sidoo kale Israa'iil way og tahay waxaan isla soo qaadnay mararka qaar waxaa dhacda in qorshe aad isleedahay degdeg ayuu ku meel marayaa uu qaato muddo dheer halka qorshe aad isleedahay uu kula daahi doonaana uu horay u meel maro marka wax waqti ah uma aanan qaban qorshahan taasoo ka duwan sidii xilliyadii hore loo wajihi jiray si aan fursad ugu helno inaan ku guulaysanno madaxweynaha go'aan ayuu qaadan doonaa asagoo xeerinaya waxyaabo badan go'aankaasina asaga ayaa idiin sheegi doona xilliga ku habboon madaxweyne Trump ayaa markii uu ku jiray ololihiisa doorashada waxa uu ballan qaaday safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv uu soo rari doono magaalada Qudus isla markaana uu aqoonsan doono caasimadda Israa'iil axmed badar aad ayuu mahadsan yahay haddaba tallaabadan uu damacsan yahay maraykanka iyo waxaa ka dhalan kara waxaanu ka waraysanay axmed tiiro khabiir ah ka faalooda arrimaha bariga dhexe bashiir maxamed caato ayaanu u warramay aad bay suuragal u tahay maraykanka koongareeska wuxuu gaaray go-aanka in qudus loo soo raro 1995 laakiin madaxweyne kasta wuxuu siiyey inuu 6 bilood damba 6 bilood kasta uu cusbooneeyo in dib loo dhigi karo inaan loo dhigi karin marka laga soo bilaabo 1995 ilaa haddeer madaxweyne kasta 6 bilood dib ayuu u dhigay sababtoo ah waqtiga ma saamaxaynin arrintaas ay tahay laakiin waxaad moodaa Trump inuu go'aansaday inuu raro waxaana la sheegaa in ay labo mid uu samayn doono kow inuu caasimadda raro waa midda koowaad midda labaad oo haddii taa uu
ka dhagaadka dhibto wuxuu samayn doonaa qudus ayuu ictiraafi doonaa inay tahay caasimadda israa'iil waxaana laga yaaba markaas inuu safaarada dib yaro dhiga laakiin ictiraafkii uu keeno uu yidhaahdo qudus ayaa ah caasimadda israa'iil labadaas ayuu mid qaadan doonaa waana la rajaynaa inuu ku dhawaaqo weekan dhexdiisa labadaas midkood maxay tahay marka caqabada ka dhalan karta haddii maraykanka uu safaaradiisa u soo raro magaalada qudus saad la socotaba arrintan waxaa lagu tilmaamaa dunida carabta heshiiskii qarniga ama safqatal qarni waxa carabiga lagu yidhaahdo heshiiska qarniga waxaa la rabaa arrinta falastiin in la baabi'iyo inay dhammaato sababto ah nimankan hadda soo haray khaliijka iyo inta soo hartay dictatoriyada sida siisi iyo wax lamida waxay u arkaan culays inay ku tahay qadiyada falastiiniyiinta oo intaan lasii wadi karin saa daraaddeeda waxaa heshiis ka socdo hadda dowladda maraykanka oo uu xil saaran yahay wiilka qaba gabadha Trump oo Kushner la yiraahdo iyo Maxamed bin Salman iyo Sisi iyo groupkan waxay u xil saaran yihiin arrintan san inay dhameeyaan qarnigan ay dhameeyaan inta hadda Trump heshiiskii guud waa dhacay Israa'iil si rabtay in la sameeyo in Qudus loo deeyo in meelihii settlementskii ama deegaanadii loo deeyo iyo sida ay rabtay in la sameeyo axmed tiir ayuu ahaa bashiir caato ayuu waramayey halka aad dhegaystayaal nagala socotaana waa london iminkana waa barnaamijkii cayaaraha iyo cabdirisaaq xaaji maxamed siraad ku soo dhowaada barnaamijka cayaaraha waxyaabahan idinku hayno waxaa ka mid ah annagoo ka sheekaynaa Mo Farah iyo cayaaraha maarathonka uu doonay inuu ka qayb galo cayaarihii ingiriiska iyo halka ay marayaan sida loo kala badiyey Wenger muxuu ka yidhi markii laga badiyey Arsenal waxaanu idiin haynaa Tiger Woods oo ku soo laabtay cayaarta golfka aan ku birown haddaba ta u horeysa waxa ay tahay Mo Farah ayaa waxa uu ahaa ku guulaystay 10,000 iyo 5,000 ee mitir orodka waxa uu qaatay bilado badan oo dahaba cayaaraha caalamka iyo cayaaraha Yurubba haddaba iminka waxa uu u wareegay marathonka oo ah orodka dheer waxa arrintaasi iminka inoo haya Qaalib Baaruud maxamed faarax waxa uu ingiriiska u soo guuray isaga oo 8 jira lana socda aabbihii mukhtaar isla markiiba waxaa la arkay hibada gaarka ee maxamed u leeyahay orodada waxa uu isagoo 13 jira ka qayb galay tartankii ugu horreeyey kaasoo ahaa ciyaaraha dhaadheer ee iskuullada halkaasoo uu ka galay kaalinta 9aad sannadkii xigay isla orodada ayuu maxamed ku guulaystay sannadkii 2001 maxamed waxa uu ku guulaystay ciyaaraha dhallinyarada ee Yurub isaga oo kaalinta koowaad ka galay orodada 5,000 iyo 10,000 sannado badan kadib maxamed waxa uu si joogtaa ugu guulaystay ciyaaraha Olombiga iyo kuwa horyaalka adduunka marka la isku wada daro waxa uu ku guulaystay 10 biladood oo waaweyn Brendan Foster oo isagu ahaa ordaa caan oo u orda Ingiriiska ayaa aaminsan inuu maxamed faarax yahay ordaagii ugu wanaagsanaa ee abid ka qayb qaata ciyaaraha dhaadheer mahadsanid Qaalib iminkana aanu gallo cayaaraha Ingiriiska ee Premiershipka cayaaro fara badan ayaa dhacay toddobaadkan maalintii Sabtidii iyo maalintii Axaddii cayaaraha kuwa u mudnaa waxaa ka mid ahaa markii ay iska hor yimaadeen Arsenal iyo Manchester United waxaa la filayay Arsenal cayaar adag inay halkaasi keento hase yeeshee 3 gool iyo gool ayaa lagaga badiyey cayaarta badideeda iyaga gacanta ku hayay laakiin waxa ay ku dhammaatay iyada oo goolkan lagaga badiyey Taking on Koscielny and a tap in for Lingard. It's 3-1 to Manchester United. waxa ay noqotay cayaar lama filaan ah oo tiimkii gacanta sare lahaa laga badiyey haddaba tababaraha tiimkaasi Arsene Wenger ayaa wax laga weydiiyey waxa uu ka qabo iyo siduu u arkayay cayaartii lagaga badiyey We have produced an excellent performance, but we conceded 3 goals. We had at least 10 chances and we were not efficient. cayaar fiican ayaanu muujinay si fiican ayaanu u cayaaray laakiin aakhirkii 3 gool ayaana lagaga badiyey iyo hal waxa uu yidhi waxaanu haysanay 10 fursadood oo aanu gool dhalin karno hase yeeshee kumaanaan filaan inaanu xooggayaga dhinaca goolka dul saaro oo waxmaanaan dhalin aad baan uga naxayaa buu yidhi cayaartooga waayo niyad fiicanna way keeneen si fiicanna way u ciyaareen laakiin cayaartii markii ay dhammaatay waxaa muuqanaysay halkiina laga doonayey inaanan gaadhin cayaaro kale fara badan ayaa dhacay kuwa kale ee mudnaa waxaa ka mid ah
tiimka Manchester City waa labadii Manchesterba way badiyeen oo iyaguna 13 jeer oo isku xiga badiyey ciyaaraha ay ciyaareen waxaa ka mid ahaa tii ay iyagu ku guulaysteen shalay. De Bruyne crosses, Silva's there! Silva scored the winner! Left foot in the volley, just slipped it to the left of the goalkeeper Adrian, and we've only got 7.5 minutes to go. Manchester City 2. aakhirkii way guulaysteen waxaana ay iyada oo ciyaartii gabagaba ah gool labaad dhaliyeen waxaanay hogaaminayaan iminka Premiershipka. ciyaaraha kale dhacay waxaa ka mid ahaa Chelsea oo 3 gool iyo hal kaga badisay Newcastle oo Newcastle runtii ay goolka markii hore ku horeysay hase yeeshee laga badiyey. ciyaarta kale ee indhaha lagu hayay waxay ahayd Brighton oo kor u soo kacaysa lafteedu inay iska hor yimaadeen Liverpool oo lagu ciyaaray garoonka Brighton 5 gool iyo hal ayay Brighton ku badisay. Everton oo bariyaha dhulka taalay mar horena badisay waxay isku soo beegmeen Huddersfield 2 gool iyo eber ayay Everton ku badisay. waa 3 dhibcood oo aad iyo aad ugu baahnaayeen tababarahoodii markii la eriyay oo loo keenay Allardyce tababaro kale. Leicester 1 gool oo kaliya ayay kaga badisay Burnley. Stoke City waxa ay ka badisay Swansea oo qudheedu imika liidata inkasta oo goolka Swansea ay ku horeysay. Tottenham oo aad moodo imika inay sii degayso hase yeeshee markii hore xawli ku soconaysay oo la lahaa afarta hore way geli karaan Premiershipka waxay iska hor yimaadeen Watford waxaana lagu ciyaaray garoonka Watford halkaasoo gool iyo gool ay noqotay. West Bromwich Albion iyo Crystal Palace oo labaduba dhibco runtii u baahnaayeen waxa ay noqotay eber iyo eber. ciyaartii hadda dhacday Bournemouth waxay iska hor yimaadeen Southampton oo ay noqotay 1-1 inkasta oo Bournemouth ay ku horeysay goolka. ciyaarta kalena waxay ahayd Manchester City oo West Ham kaga badisay 2 gool iyo 1. haddii aynu noqono dhinaca ciyaarta golfka ninka caanka ah ee Mareykanka madowee Tiger Woods ayaa muddo ka maqnaa ciyaarta golfka. toddobaadkan ayuu ku soo laabtay waxaanu muujiyey in caafimaadkiisu uu dhaamo sidii uu berigii hore ahaa. dhowr jeer ayaa Tiger Woods dhabarka laga qalay laakiin markan ciyaar fiican ayuu keenay. faahfaahintaa waxaa inoo haya Axmed Cabdinuur. Rocky Fowler guul weyn ayuu ka gaaray halyeyga tartanka adduunka kadib markii Tiger Woods uu ka soo noqday dhaawiciisii wareeggii ugu dambeeyey oo adag. ninkan 14 jeer ku guulaystay tartamada waaweyn waxa uu ciyaarayaa tartankiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu ka baxay tartan ka dhacay Dubai bishii Febraayo isagoo qalliino dhowr ah looga sameeyey dhabarka sannadihii u dambeeyey. Tiger Woods waxa uu sheegay inuusan wax xanuun ah dareemin intii uu socday tartankan ugu dambeeyey ee uu ku soo noqday. taasina ay tahay calaamad wanaagsan oo muujinaysa mustaqbal fiican. Tiger Woods waxa uu ku guulaystay 14 tartan oo waaweyn sanadkii 2008 tartankiisii ugu dambeeyena sanadkii 2013. calaamadahaasi wanaagsan waxa ay mar kale muujiyeen wareegiisii ugu dambeeyey tartanka gaar ahaan guushii uu ka gaaray iyadoo Tiger Woods uu taxaddar badan muujin doono kadib markii dhowr jeer hore oo ciyaaraha uu ku soo noqday uu sii wadi waayey ayaa haatan waxaa dhiirigelin u noqon karaysa guulo uu ka gaaray tartamada ay ka mid yihiin tartanka Mareykanka ee loo yaqaan PGA iyo kan kale ee la yidhaahdo Brooks Cup oo rag caan ah uu kaga soo adkaaday. waan ogaa inaan awoodi doono in aan 4 maalmoodba ciyaaro ayuu sheegay Tiger Woods. mahadsanid Axmed. hadda aan u galno markaa ciyaarta tenniska ninka lagu magacaabo Murray Britishkii waxa uu yahay nin dhowr jeer ciyaaraha tenniska ku guulaystay hadday noqoto Mareykanka hadday noqoto Ingiriiska Wimbledon oo caana oo uu 2 jeer helay. hase yeeshee hadalla imika uu soo jeediyey ayaa waxa uu ku muujinayaa in uu doonayo inuu noqdo tababaraha noqdee waxa uu doonayaa in uu soo kobciyo waxa uu ku tilmaamay dhalinyarada yaryar ee doonaysa ciyaarta tenniska guul in ay ka gaadhaan isagoo oo sheegay markii uu yaraa inaanu helin runtii academy dhinaca tenniska oo si fiican ugu tababaran lahaa. hase yeeshee hooyadii ayaa tababari jirtay waxaanu noqday ragga ugu caansan adduunka tenniska.
laba gabdhood ayaa ku jira dadka la sheegay in uu gacanta siinayo waa mataano waa laba gabdhood oo madow ah laakiin waxa uu go'aansaday in uu dhallinyarada oo dhan caawiyo sheekadan waxaa inoo hayaa cismaan xasan wuxuu ku guulaystay 3 horyaal oo waaweyn wuxuu olombikadiina ka helay 2 biloodood oo dahab ah wuxuuna ka mid noqday kuwa ugu magaca dheer isboortiga Britain markii ugu horreysay ayuu Andy Murray ka hadlay rajadiisa in maamulo isboorti uu noqdo waraysi gaar ah oo BBC-da qaybta isboortiga ay la yeelatay ayuu kaga hadlay qorshihiisa uu ku tababarayo ciyaartoy isagoo aanan joojinayn tartanka uu ku doonayo inuu ku gaaro meel sare wuxuu sheegay in rajadiisa ay soo bilaabatay 2013 markii koobkii Wimbledon uu qaaday Murray ayaa bilaabay ciyaarta tenniska markii uu 3 jir ahaa 2 sannadood kadib wuxuu bilaabay inuu tartamo taasina waxay keentay in degdeg loo ogaado kartidiisa Murray wuxuu doonayaa in dhallinyarada soo gelaysa ciyaartoyda aysan gelin qaladaadkii uu soo maray waqti ayay qaadataa inaa isboortiga fahamta ayuu yidhi Murray oo intaasi raaciyey in uu rajaynayo inuu caawiyo ciyaartoyda yaryar waa mid aad iyo aad loo jeclaystay Murray in uu doonayo inuu dhallinyarada caawiyo rag iyo haweenba iminkan haddaba aan u gallo cayaaraha Yurub ku dhowdo halka ay marayaan toddobaadkan iyadoo cayaaro waaweyn oo fiicani ay yimaadeen bal aan ku bilowno dalka Spain haddii aynu ku bilowno cabdirasaaqow waxaa wada ciyaaray Valencia iyo Getafe Valencia ayaa laga badiyey Getafe hal ayaa ku badisay taasina Barcelona in ay 36 dhibcood ay hesho oo ay 5 ka sareysa ayay keentay iyada ayaana ugu sareysa maxaa ugu dambeeyay markaa bal Yurubna ee gudaha horta waxa weeyaan haddii aynu eegno tiimka Barcelona si fiican ay u ciyaarayaan Valencia oo aad in kale Getafe ayaa ka badisay iyaguna waxa ay yihiin kuwa labaad Barcelona waxa ay leedahay 36 dhibcood Valencia waxa ay leedahay 31 dhibcood labadii Madrid ayaa madaxa iskula jira runtii Real Madrid ayaa baryahanba aad moodaa heerkii laga filayay inaanay gaadhin waayo iyadoo Barcelona 36 leh Real Madrid inay yeelato 28 waxay ahayd mid lama filaana Atletico Madrid baa ka horeysa oo Atletico Madrid waxa ay leedahay 30 dhibcood haddii aynu u leexano dhinaca Jarmalka waxa iyaguna ay xiise ku leedahay Bayern Munchen ayaa sidii la filayay ugu horeysa Bayern Munchen dhowr jeer ama dhowr sannadood oo isku xiga ayay badiyeen si fiican halka ugu sareysana ay marar badan ay ku jireen iyaga hadii jeer ku jiri jiray iyaga dhowr jeer koobka Yurub qaatay haddii la soo qaado tiimka waaweyn ee Yurub hadii jeer waxa la soo qaadaa Real Madrid iyo Barcelona iyo Bayern Munchen marka meel fiican ay kaga jirtaa kubadda cagta Yurub tiimka labaad ku xiga waxa weeyaan Leipzig oo aan markii hore lagu tirin jirin tiimka waaweyn ee dhinaca Jarmalka waxa ku xigtaa Schalke waxaana ku xigtaa Mönchengladbach Bayern Munchen waxa ay leedahay 36 dhibcood waxa ku soo xigta Leipzig oo leh 26 marka ay 10 dhibcood baa u dhaxeeya ciyaarina waa sii socdaan Schalke waxa ay leedahay 25 Mönchengladbachna waxa ay leedahay 25 haddii aynu markaa u leexano dhinaca kale ciyaaraha waddanka Talyaaniga baryahanba waxa wadatay Napoli berigii hore Juve waynu ognahay mar in la khasiray oo ay hoos u degtay ayaa hadda imika waxa soo baxday Inter Milan oo timi Inter Milan lagama filayne Napoli baa baryahan u iska wadatay marka waxay ahayd Napoli iyo Juventus keebaa ka qaadi doona meesha Napoli Inter Milan baa ka qaaday 39 dhibcood bay leeyihiin dhibco badan uma dhaxeeyaan Napoli waxa ay leedahay 38 Juventus waxa ay leedahay 37 waxa u dhaxeeya waa laba dhibcood soo maaragtay si fiican waxa ku soo biirtay marka Roma oo iyaduna waxa ay leedahay 34 dhibcood cabdirasaaq waxaa tiri marka tiimamka khatarta ah ee Yurub laga hadlayo Barcelona iyo Munich baa laga hadlaa kooxaha Ingiriiska kaba laga daraa horta tiimamkan Ingiriisku waxa ay leeyihiin taageerayaal aad iyo aad u fara badan lacagta ugu fara badan kubadda cagta waxa ay taalaa Premiershipka weyn ognahay marka nin kasta oo ciyaara oo ciyaar fiican muujiya waxa uu yimaadaa Premiershipka ha yimaadee
haddana marka ay timaad maadaama dad badan oo ajnabiya wanaagsan ay ka ciyaaraan premiershipka waxay keentay ciyaartoogii britain ama england inaanay rajo weyn yeelan waa hagaag cabdirasaaq xaaji maxamed siraad aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegaystayaal qodobada warka ugu doorka roona waxaa ka mid ahaa fallaagada xuutiyiinta ee yeman ayaa waxa ay sheegeen in ay dileen madaxweynihii hore ee yeman cali cabdalla saalax baraha internetka ayaa la soo dhigay muuqaalo muujinaya meydka nin u eg cali cabdalla saalax oo dhaawacyo weyni madaxa ka soo gaadheen waxaa hore u soo baxay warar sheegaya inay xuutiyiintu ay gurigiisa duqeeyeen oo ay dumiyeen fallaagada xuutiyiinta maalmihii u dambeeyey dagaalo baana waxa ay kula jireen taageerayaasha cali cabdalla saalax waxa aanay amar ku bixiyeen in la dilo wixii ka soo kordho wararkaasina dabcan barnaamijkeenna caawa ayaad ku maqli doontaan sidaas iyo nabad gelyo